wardegdega hogaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa qarka u saaran inuu iska casilo talada ugu sareysa maamulka galmudug ka gadaal markii beelihii halkaasi wada degay ay beelbeel iyo jifo ay isu ugaarsanayaan iyadoona arrintan ay saameyn ku leeyihiin rag waaweyn oo musharaxiin ah sidoo kalena u taagan xilka ugu sareeya maamulka galmudug mahad salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka liibaan shuluq iyo sidoo kale rag kale ayay arrintu lugaha la gashay waxaana la soo ogaaday mas'uuliyiin ku lug leh in ay beelaha diga maamulka galmudug ay beelbeel iyo jifo ay isu ugaarsadaan ku darso Qoorqoor waxa uu cadaadis kala kulmayaa dhanka filla Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo doonaya inay kursiga iyo talada ugu sareysa maamulka galmudug ee 5 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay gibi ahaanba laga qaado sidoo kale waxa gacanta lagu soo dhigay raggii ka soo jeeda beesha Duduble ee dilay hooyada 60 jirka ah ee ka soo jeeda beesha Saleemaan iyo sidoo kale caruurteediina dhaawacay ayaan la soo qabtay ka gadaalna xabsiga ayaa la dhigay caawa xabsi ay ku hoyeynayaan haddaba raggan soo qabashadooda ayaa hadalhayn dhalisay beeshii Duduble waxay ku hanjabaysaa waan aarsanaynaa habargidirna kama yeelayno habargidirna waxay leedahay isla dhig waa kala aarsi wixii aan idin geysanay ayaa noo geysateen waana kala aarsi ay leeyihiin xaaladdu meel cakirnaan ay wajahaysaa galmudugna waxay qarka u saaran tahay inay burburto ama ay baabado ama ay ku laabato dagaaladii sokeeye ee ay ka soo kabatay tan iyo xilligii dib loo doortay hogaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay soo qabashada kooxdan hanjabaadda ay beeluhu isweydaarsanayaan iyo sidoo kale ragga ku lug leh arrintan in beeluhu ay isxasuuqaan dadka risaasta u gedaya dadka qoryaha isugu dhiibaya dadka kale iyo xogo kale oo aan helnay ayaan dabcan idin soo gudbinaynaa soo dhawaada idina aragtidiina inala wadaaga qaybta hoose ee commentiga aan ku bilownaa warkii ugu farxadda badnaa ayaa imaaday markii maamulka galmudug oo ku fashilmay inuu gacanta ku soo dhigo kooxdan gacan ku dhiglayaasha oo ay ka soo baxeen galmudug iyagoo si nabad ah waliba si nabada markaan ku leeyahay iyadoo qofna aysan ku raad joogin ayay ka soo baxeen galmudug waxay soo aadeen dhanka magaalada Muqdisho si ay isu dabiibaan maxay iska dabiibayaan dib ayaan kala wadaagaya magaalada Muqdisho iyagoo soo galaya ee dabiib raadsanaya ayaa gacanta lagu dhigay xabsiga ayaana loo taxaabay cawada waa ku daayeen tiirka toogashada ama shuuta ayaa marka hore la horgeynaya kadibna tiirka ayaa la geynayaa raggan waxay ahaayeen raggii dhawaan hooyada 60 jirka ama ka badan da'deeda lagu qiyaasay ku dilay deegaan ku yaala deegaanada maamulka galmudug raggan markii ay dileen hooyada iyo caruurteedana ay dhaawaceen waa ka baxsadeen goobta oo waa baxeen markii ay baxeen iyagoo sii socda sida aan xogaha ku helnay weeyaan waxaa ka hor yimid maleeshiyaad ka soo horjeeda ama ka soo jeeda beesha Duduble oo isku jifayeen markii ay ka hor yimaadeen waxay u maleynayeen maleeshiyaad ka soo jeeda beesha Saleemaan rasaas ayaa la isku furay kooxdan dhaawacyo ayaa loo geystay marka lama dilin laakiin waa la dhaawacay ilaan qof wax soo dilay tahay oo dhibaato ayaa ku daba taale waa la dhaawacay kadib la arkay inay yihiin iyaga waa la isfahmay magaalada Muqdisho ay markaas dabcan waxay go'aansadeen inay soo aadaan maadaama magaalooyinka kale ee maamulka galmudug aysan aadi karin wajiga ay soo xirxirteen magaalada ay doonayeen inay soo galaan gacanta ayaa lagu dhigay xabsiga ayaana loo taxaabay shuutana si degdeg ah ayaa lagu horgeynaya halka markii taagan tahay marka beesha Duduble ayaa hanjabaad toos ah bilowday oo sheegtay in raggan hadii la dilo shuutana la horgeeyo ay qaadi doonaan tallaabo kale oo argoosiya oo ay ku soo dilayaan rag kale oo ka soo jeeda beesha Saleemaan waa sida ay dabcan hadalka u dhigayaan sababta waxay ku sheegeen in raggii dilay hooyada iyo saddexdeeda gabdhood lagu xukumay kaliya xarig 3 sano ilaa 4 sano u dhaxeeya taasina macnahaan ay ka dhigan tahay in iyaga loo dan leeyahay mooyaan raggaasina aan dhibaato loo geysan kuwaana aan dhibaato loo geysan karin oo loo baahan yahay in la isla dhigo haddii halka taagan tahay beelihii ay isu hanjabayaan waxa soo baxay siyaasiyiin ku lug leh dhibaatooyinka ka taagan deegaanada maamulka galmudug ilaa iyo iminka siyaasiyiinta la sheegay waxa kamid ah liibaan shuluq waxa kamid ah nin lagu magacaabo markaas musharax ah
oo lagu magacaabo Mahad Salaad iyo sidoo kale rag kale oo tirabeela qoorqoor waxa uu la kulmayaa bareeshar xoogan oo kaga imaanaya dhanka filada saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeeyay Mahad Salaad ayaa cadaadis saaray waxaana madaxweyne Xasan Sheekh kala xulanayaa ninkii uu madaxweyne uga dhigi lahaa maamul goboleedka Galmudug dhammaantood waa saaxiibadiis oo mid mucaarad ku ah kuma jira dabcan laakiin waxa la aaminsan yahay in dabcan sida muuqata madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u dhow yahay ragga filada ka agdhow ama sida weyn ula shaqeeyay maadaama qoorqoor kaliya dawladii farmaajo ay meesha keentay haddaba waxa soo kordhawaan eegina wararkeena iyo barnaamijyadeena dambo soo qabashada raggan hanjabaadaha beelaha iyo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan markana ila daawar saxaafadeed soo baxay oo raggan lagu faafeeyay waxa yihiin halka lagu qabtay iyo sida laga yeeri doono bismillaahir rahmaanir rahiim maantay oo taariikhdu tahay 3 bisha 11aad 2025 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan rabnay inaan uga hadalno dhacdooyin ka dhacay deegaanka Guudoole koodii bishii 11aad 2025 deegaankaas waxaa lagu dilay hooyo iyo caruurteed ayagoo jiifa gurigoodii xilli habeen ah waxaana dilay maleeshiyaad arxanlaawayaal ah oo aan u tulayn maato caruur culummo iyo cid kale waxaan dhihi karnaa waa dad gaangis ah waa dadaan maaragtay arxan lahayn waa dadaan iimaan lahayn waa dad diinta ku xunta waxaa dhacay 9kii bishii 10aad 2025 fal noocaan ah oo ka dhacay deegaanka Baaldheer waxaa loo soo qabtay howlgal waqti badan qaatay ayaa waxaa loo soo qabtay 3 eedeysane wuxuu ku xiran yihiin saldhigga booliiska Dhuusamareeb waxaan la horgeeyay sharciga waxaan ka dignay xilligaas in falka noocaas ama dhacdada noocaas mid lamida aysan ku jawaabin dadka dhibkaas loo geystay oo dhibanayaasha ah laakiin waa dhacday falkii fal lamid ah dhacay dad wuxuushaana geystay waxayna ku dileen hooyadaas iyo caruurteedii ay ku dileen markii dhibaatadaas dhacday ciidamada dhammaan ciidamada Galmudug waxay sameeyeen howlgal ilaa iyo saacadaas aan hadlayno waa socdaa howlgalkaas waxaan nasib darro noqotay inay nimankaas baxsadeen magaalada Muqdisho balse hay'adaha ammaanku meel kasta oo joogan waa isku xiran yihiin waxaana gacanta lagu dhigay eedeysanayaashii falkaas ka qayb qaatay oo 6 ah 6daas eedeysane magacyadoodu waxay kala yihiin lambar 1 Cabdi Kaafi Maxamed Axmed lambar 2 Cabdullaahi Xasan Daahir 3 Maxamed Cabdi Cabdulle 4 Suudi Daahir Kaahiye 5 Qaasin Axmed Jimcaale 6 Maxamed Cabdi Xayr 6daas eedeysane waa dadkii geystay falkii wuxuushnimada ahaa ee habeen dhaweed ka dhacay meeshaas waxaan lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaan runtii u mahad celinaynaa dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska qaasatan taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo naga gacan siiyay nagana dhaxayso eedeysanayaasha xagga ka soo baxsanayana inaan qabanno kuwa halkan ka tagayana ay noo qabtaan waxaan dadka shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaysan dambiilayaashu aanan ka aqbalayn in inta dambi la sameeyo la ordo waa ku mahadsan yihiin shacabka inay naga war sugeen in badan inta maartay howlgalkaas hawshaas jirtay inay naga sugayeen naga war dhowraayeen waan ku mahadsan yihiin annaguna de waxaan ku howl jirnay shaqadaas iyo hawshaas aan u qaban lahayn waxaan rabaa oo kale inaan wax yar ka iraahdo shaqooyin maalmahan ka socday deegaanada qaar oo jidgooyooyin iyo dhibaato iyo qayladaan ay socotay taasoo la leeyahay maxaabiistii ku xiriireen Dhuusamareeb oo 3 eedeysanayaashahay waa la jibdilayaa waa la garaacay xaniyaa laga siibay waxsaas dadka dumarka ah iyo masaakiinta loo sheegay waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka shacabka ee odayaasha dhaqanka hooyooyinka intaba inaysan jirin wax haba yaraatee fal
akhlaaq darro ah oo loo geystay eedeysanayaasha meeshaas ku jira waxaa u yimid xildhibaano ehelkooda ah waxaa u yimid qareennada u doodayay ayagaa arka ayagaa og ma naqaano meesha laga keenay xaniyaa laga siibay iyo xaniyaa laga garaacay waa la tumay meesha laga keenay ma naqaano dadka shacabka waxaan sheegaynaa waxaas inay been abuur ahaayeen in dad dana kaluhu ay barnaamijkaas ay ka shaqaysanayeen maadaama aysan dadku aysan wada ogeyn xaaladda meesha ka jirta ama aysan meeshii saldhigga aysan imaan laakiin waxay ahayd dadka u yimid inay u gudbiyaan waaqiciga saxda ah idaacad ama la hadlaan iclaam kala hadlaan ama maarta si kale ula hadlaan barnaamijkaas barnaamij la soo dhoodhoobay oo been abuura waaye booliisku xaqna umale saxna maahan sharcina maahan in maxbuus la garaaco la yidhaahdo waraa laga keenaa been waaye sharcigay hor joogaan waxay sharciga ka helaan ay leeyihiin maxkamadda ugu horreysa waa ay mareen racfaana la qaatay waa mari doonaan waxaan rabaa kale in u sheego eedeysanayaasha 6 ah ee gacanta lagu haayo markii loo sameeyo gargaar caafimaad ka bacdi waxaa la horgeey doonaa sharciga haddii alla idmo sharciga la horkeeni doonaa sharciga waxay ka helaan ay leeyihiin waxay la mid yihiin eedeysanayaasha la soo qabtoo kale ay la mid yihiin waxaan u mahad celinaynaa si gooniyaan ugu mahad celinaa ciidanka ilaa waqtigii dhibkaasu dhacay ilaa saacaddan ku jira howlgalka ciidanka daraawiishta booliiska iyo hay-adaha kale ee dowladda si gooniya waxaan isaga laftiisa u sii xub doonaa taliyaha madaxtooyada xidig isagoo laftiisa iska saaray meelaha shaqaqooyin ka dhaceen iyo meelaha dhibka intaba maaragtay xil iska saaray juhdi badan ku baxshay aadan u mahad celinaynaa dhammaan reer galmudugna saas ogaadeen waa mahadsan